maadaama ay siyaasadii marka ay dadka aan la aqoon ay ka awdan tahay dhalinyarada ayaga laga rabaa inay kartidooda soo muujiyaan inay ayaga rabitaanku ay ka timaado inay waxaan rabaan markii dhalinyarada ay rabitaanku ka yimaado cid walba ku qasbantaa inay dhageysato siyaasadda Soomaaliya maantayna qof gurigiisa lagu tagayo oo la soo jeediyaa ma jirto qofkii banaanka isa soo dhiga ayaa hashaas maandeeq wax ka qaybsanay laakiin qofkii gurigiisa iskaga jiro dhalinyarada loo imaanaya ma jirto dhalinyarada boqolkiiba 70 wadanka ayaga ka ah ayaga laga rabaa inay weligood siyaasiga iyo qofka jooga wuxuu leeyahay dhalinyaradu berri bay iska leeyihiin xukunka dhalinyarada madaxdii berri weeye saysa u leeyahay dhalinyarada 40 gaaraysa ayaga odayaasha ku biiraya gabadhu ma ay aaminsana sida ay rabaan inay u dhaxmari karaan laakiin ninka ragga ah waa danaha isku keena danahaas baa kala furfuran laakiin gabadhu wadanimadii dhalinyarada wadanimadii wax walba macnaha xad bay u yeelayaan laakiin dadkii waaweynaa ee systemkan afar dawladeed iyo saddex dawladeed ka soo shaqeey maalinba maalinta ka dambeeya quusti way ku jiraan soo way u bareerayaan waxba macnaha wax ay kaga gambanayaan mal laakiin qofka haweenka ama qofka dhalinyarada xad baa jiraysa oo celinaysa oo ah inuu qofkan uu hooyo yahay inuu dhalinyarada uu yahay mustaqbal uu rabo oo hadduu maanta waxaan sameeyay asiga ka jaran tahay marka haweenku iyo dhalinyaradu saasay uga qabgalayaan eed odayaalka may waaye eedaan dhawaayeen haweenka iyo hoonagata bulshada naftirshay markii la badanta may koobanta oo aqaad lama tusaalaan haweenka iyo dhalinyarada inkastoo doorka leeyin haweenka iyo dhalinyarada bulshada dhatiyo odayaalka eedaan dhawaayeen fikradaanta ay markaana dhiibadan taas oo bananagada maya sababtoo ah way buahan dhalinyarada markii horta dadkii isla kulmayaan iyo is aragayaan yaa fikradii walkasta lisluwada kor jaanas bamansiyaayaan inta dhalinyarada ee la fadhiyaan agabadiyo ee dhabkiyo haysa iyo ku hadalan dhalinyarada jaanaskaas dhan mansiyaayaan